shirkadda isgaarsiinta Telesom ayaa maalintii shalay waxay soo gabagabaysay carwo muddo 3 maalmood qaadatay oo ay ku soo bandhigaysay adeegyada ay u hayso bulshada oo ka soconaysay hoteelka Guuleed ee magaalada Hargeysa waxaana abaalmarin la guddoonsiiyay 105 qof oo kamid ah macaamiisha shirkadda oo ku guuleysay Bakhtiyaar Nasiib abaalmarimaha lagu guuleystayna waxa kamid ah gaari telefoonada casriga ay gacanta lagu qaatay iyo agab kale Cabdiwahaab Maax madaxa arrimaha bulshada ee shirkadda Telesom ayaa waxa uu ka hadlay abaalmarimahaasi Bakhtiyaar Nasiibka ay shirkadaasi qabatay abaalmarimihiisa lagu guuleystay halkan waxay noo yaalaa faraska heesaysan Faarax sheegay hortaydana waxa soo fadhiya macaamiishii ka soo qayb gashay mashruuca tijaabi nasiibkaaga especially inta ay soo dhibtay ee ku tala gashay inay maanta xaadiraan dhacdadan goobjoog ka noqdaan waxaan doonayaa inaan halkan soo jeediyo ogolaanshahan idinka qaato kadibna aynu sidaa iskula waafaqno waxaan soo jeedinayaa baabuurka halkaa yaala aynu ugu talagalay maanta in lagu guuleystaa inuu ku guuleysto qof kamid ah dadka goobta jooga Faarax Sugaal maamulka ku xigeenka hawlaha guud ee shirkadda Telesom ayaa waxa uu sheegay in shirkaddu ay bulshada u hayso adeegyo qanciyo casri ah xafladda tan aynu hadda xiritaankeeda u fadhino ee 3 maalmood socotay waxa dhinac socday qiimo dhimis dhammaan Telesom Group ay ku sameysay adeegyadii iyo serviceyadii ay bulshada u haysay oo ugu horeeyo qiimo dhimis aad u xoog badan ama aad u ballaaran oo lagu sameeyay qiimaha internetka oo aad arkaysaan boorarkan ama broshurska ku arkaysaan bandhaliska cusub ee la sameeyay iyo qiimaha la sameeyay oo aad ku aragteen 0.25 cents 0.5 cents in aad 4G ku shuban kartid kagana dhargi kartid kagana maarmi kartid wax kasta inta waxa dhinac socotay oo carwadii iyana dhinac socotay tijaabi nasiibkaaga oo waliba si shariicada waafaqsan u socotay taa waxaan uga jeedaa SMS-kii la soo dirayay ee qofku tijaabada ku qaadayay oo inuu guuleysto iyo inuu guul dareysto labadaba uu ka filayay free buu ahaa Dr. Aadan Ismaaciil oo iyana ka hadashay soo gabagabaynta carwadaasi abaalmarimaha lagu guddoonsiinayay macaamiisha ku guuleysatay Bakhtiyaar Nasiibka ayaa waxay si weyn u amaantay adeegyada ay qabato shirkadda Telesom shirkadda Telesom taladan amaanta la soo jeedinayaa waxa weeyaan cilmigan casriyaysan ay dalkayga Soomaaliland ku soo kordhiyeen waa loo baahnaa waana ku faraxsanahay inay u horseedaan cilmigaas Soomaaliland agaasimaha guud ee wasaaradda boosta iyo isgaarsiinta ee Soomaaliland waxa uu shirkadda Telesom ku bogaadiyay horumarka ay sameeynaysa ilaa markii la aasaasay waa shirkadda ilaa iyo maalintii la aasaasay ilaa iyo maanta oo aynu marayno 2016 intii ay jirtay korukac mooyaane mar kaliya aan hoos u dhicin runtii hambalyada iyo bogaadinta waxaan u dirayaa dhammaan shaqaalaha hoggaanka sare madaxda kala duwan ee shirkadda hawlwadeenadeeda ayaan hambalyadaas u dirayaa waxaan leeyahay hambalyo Telesom Xamse Maxamuud Furre ayaa shirkadda Telesom waxay guddoonsiisay gaariga uu ku guuleystay